sheekh cabdiraxmaan maxamed cali cabdiraxmaan dheere oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland oo khudbadii maanta salaada Jimcaha kaga hadlay kufsiga iyo dilka isagoo oo sheegay xadka Ilaahay u dhigay waxaanu sheekhu si gaar ah uga hadlay dhacdadii ka dhacday magaalada Burco ee kufsiga iyo dilka loogu geystay hooyo Ugbaad Cali Cabdilaahi oo ku noolayd magaalada Burco. sheekhu isagoo arintaasi ka hadlay wuxuu yiri walakum fil qisas hayatun ya ulil albab qisaasta nolol baa idinku sugan baa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kii waxaad marka gacanta la gooyo kii gabar ka zinaystay aduu guur xalaal soo maray la rajmiyo dhagax lagu dilo hadaa uu yahay qof dooban guur soo marina 100 jeeda lagu dhufto nin waliba dib ayuu joogsan lahaa waxa tacadiga inaga yaraan lahaa walaalayaal waxa aynu isku baraarujinaynaa inaynu dhamaanteen ka hawl galno dhacdada foosha xun leh ka dhacday Burco gabadha walaasheena aynu dhamaanteen wada maqalay ee dilka iyo la isugu daray xadgudubka cirdigeed iyo sharafteedina meel laga dhacay qudheed iyo ruuxdeedina la jaray waarinaadii aad u foolxid waana arin nagu cusub waynu maqli jirnay bil baxda bil tagtay geel jira meel gabadh cidlaa ka helay meel cidlaa gabadh ka helay waa la maqli jiray laakiin wali maynaan arag gabadh la kufsado oo la dilaa wadankeena waa kow waa wax nagu cusub koonfurteenu ku maqli jirnay gobolada wadanka Soomaaliya iyo koonfurtaas waxaas ka dhacaan laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa nabad iyo aan ahaynba waa la isqaadsiyaa ama waa la kala qaadaa waa xanuun inoo soo gudbay laakiin waa virus inagu cusub haddii halka lagu joojiyo oo ka tusaale lagu bixiyo maanta maadaama uu nafgooyay qiraalna uu yahay oo isagu qirtay inuu dilay marag madoonna ay tahay qiraalku waa xujada ugu cad shariicada dhexdeeda qofku wuxuu naftiisa ku qiro waa xujada ugu bayaansan ama ugu cad wax kale looma doonayo ninka waa in loo qisaasaa ruuxa dumarka muslimadda uu ku xadgudbay qisaastaasi waxay keeni doontaa in rag oo kasta oo hunguri ku jira iyo damac iyo xanuun uu qalbiga kaga jira inuu dib u joogsado inaga ku kala badbaadi doona nabadeena ku adkaan doonta iyo amnigeena dawladnimadeena ku xoogeysan doonta dadnimadeena ku dhismi doonta isku duubnideena iyo wada jirkeena ku noolaan doona waa xaqiiq weey Ilaahay baa inoogu naxariisan doona subhanahu wa ta'ala maxaa yeelay aafo iyo xanuun ayaynu ka hortagnayno ka dagaalanay taasi waa taa walaalayaal waana baaqaadi aad u muhiim ah waa inaan la fudeedsanin maxaakimta iyo dadka walaalaheena garsoorka inoo fadhiya iyo garsoorayaashuna kiiska marka la hor keeno waa inaan ka warwareegin ee shariicadu waxay ku xukuntay ay ka maraan si Ilaahayna ay u raali galiyaan bulshadoodana khayr iyo wanaag ay furo ugu noqdaan ama muftaax ay ugu noqdaan hadii kale waxay noqon doontaa wada halaq mareen oo nin waliba waa isku dayi doona xanuunka noocaas iyo walaalayaal ragana waxaan leeyahay waragow Ilaahayna ka cabsada subhanahu wa ta'ala dadnimadiina iyo damiirkiina iyo marka sharaftiina iyo karaamadiina ilaashada dumarku waa hooyooyinkiin waa hablihiini waa walaaladiin waa kuwiidin dhaxay iyo dumaradiini afarta dhinac buu idinkaga xeersayin mar way ku dhashay mar way kula dhalatay marna adaa dhalay marna way ku dhaxday karaama daraalkii u dambeysay hodan bahdoon sab TV Hargeysa hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom